wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Soomaaliland Salebaan Yuusuf Cali Koore oo hoyga uu ka degan yahay magaalada Laascaanood kula hadlay warbaahinta qaranka ayaa xaqiijiyay in laga helay xanuunka COVID-19 baaritaano lagu sameeyay maalinimadii shalay waxaana uu wasiirku fariin u diray shacbiga reer Soomaaliland iyo madax dhaqameedka ay ka wada shaqeynayeen nabadii ardayda gobolka Sool wasiirku waxa uu sidoo kale mahadcelin iyo bogaadin u diray wasaaradda caafimaadka ee jamhuuriyadda Soomaaliland iyo ta gobolka Sool runtii waajib ayayna ku tahay qof kasta oo kamida mas'uuliyiinta ama dadka ku nool dadka sida publica ama jagooyinka publica haya inay dadka la wadaagaan waxyaalaha soo kordhay sidaa daraadeed anigoo wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan halkan dadweynaha reer Soomaaliland uga cadeynayaa inaan laga helay xanuunkii corona ama COVID-19 waan isleeyahay waa cudur ama waa xanuun runtii aynan ka warla'ayn oo dalka oo dhan iyo caalamka oo dhan 6 bilood 7 bilood oo ugu dambeeyay saameyn ku yeeshay waxaan aad ugu faraxsanahay maadaama ay qadarka Rabbi iska jiro inaan noqdo qalabkii ugu horeeyay ee casri ahaa ee magaalada Laascaanood la keenay qofkii ugu horeeyay ee lagu baaro ee qofkii ugu horeeyay uu ku sheegaba awal waxa loo diri jiray meelaha kale ama gobolada kale xukuumad ahaan aad baan ugu faraxsanahay in qalabkaasi soo gaaro magaalada Laascaanood oo ay dadku hadda haystaan inay isku ogaan karaan inay xanuunsan yihiin iyo inuu saameeyay xanuunkaas alxamdulillah aad iyo aad ba caafimaadkaygu u fiican yahay wax dhibaato oo aan dareemayaa oo badani ma jirto waxaan ilaahay ka baryaynaa intuu asiibay in ilaahay caafimaad ka siiyo dadweynaha waxaan leeyahay qofkii lagu sheegaa iyo baani garoobin ama uusan runtii warwarin aniga oo ninkan idin hortaagan oo wasiirka uu igu dhacay waqtigu igu dhacay ma garanayo laakiin waxa la igu yiri shalayto ayaa la igu yiri waa xanuunkaasi wuu positive ba tahay ama wuu kugu dhacay ama wuu ku haya wax problem uma arko sababtoo ah bulsho badan buu ku dhacay oo caalamka ilaahay baana awood leh qadarka rabbi baa leh sidaa daraadeed waxaan kula talinayaa ummaddu inay isbaaraan is ogaadaan markay ugu yartahay de qofka kale ka ilaalinaya ama caa'iladii buu ka ilaalinaya oo de labada bili aadanka waanu garanay sida reeruhu u nool yihiin mas'uul ahaan iyo ka wasiir ahaan waxaan ummadda reer Soomaaliland qof kasta ka codsanaynaa inuu iska ilaaliyo oo uu bal intii awoodiisa uu taxadari karo uu ka taxadaro si uusan isagana u asiibin bulshada kalena ugu faafin mas'uuliyadda ayaana nagu khasbaysaa inaanu sidan yeelo aanu u gudbino la wadaagno maadaama aanu si publica u noolahay inaanu wixii nagu yimaadana aanu si publica u sheegno waan isleeyahay bulshadu inay fahanto xanuunkan inuu soo laba kacleeyay maadaama aan guddiga coronavirus ka mid ahaa maalmo dhaweyd waa la isdhigtay waxaa la yidhi xanuunkaasi Somaliland uu ka dhammaaday laakiin hadda waxaa muuqata oo waliba deegaamadan Sool ka muuqata inuu runtii uu calaamado badan oo muujinaya inuu aad u jiro ay jiraan qoladii odayaasha ahaa ee shirkii aan hayay ee nabadda aanu aniga wasiirka Yaasiin ku ahayn intii badnayd runtii waanu soo qabanay odayaasha waxaan leeyahay iyo dhammaan dadka waan ladnahay shaqadii waan wadayaa waxaan ku wadi doonaa runtii telefoon iyo warisgaarsiinta ayaan ku wadi doonaa waxaan halkan runtii bogaadin uga dirayaa wasaaradda caafimaadka iyo mas'uuliyiintii heer qaran ee shalayto
iyo daraad nala joogay ee qalabka rakibay corona COVID-19 waan isleeyahay qalab casri oo fiican baa la keenay waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dhakhaatiirtii faraha badnayd ee ii timid iyaguna xaaladayda ka warhayay oo ilaa iyo runtii mishiinkii oxygen-ta ii keenay oo yiri bal haddii in case aad wax dareento dhakhaatiirna igu assign gareeyo oo ila joogaan iyagana mahadnaq ballaaran baan runtii u jeedinayaa heer qaran iyo heer gobolba waxaa ila jooga dad aan yarayn oo runtii ama darawalla ha noqoto ama askar ha noqoto ama askar biliiso gobolka lagaga soo kordhiyey ma guriga aan deganahay ha noqoto dhammaantood waxaan amray in la baadho iyo inaanay goobta dhaafin iyagana runtii sida uu sharcigu COVID-19 dhigayo ayuunbaa loola dhaqmi doonaa oo ma ogolaan doono inay bulshada inkastoo aanan hadda cid kale ku ogeyn laakiin waxaan isla garanay dhakhaatiirta in dhammaantood la baadho dhammaantoodna waa la baadhay ilaa maanta ayaa la ogaan doonaa waxa maxsuulku yahay iyagana talada aanu kala qaadanay waxaa weeye inay ku sugnaadaan goobta liibaan qaran warbaahinta qaranka Somaliland laasacanood